kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa 4 qaab oo aad isaga yareyn karto baruurta caloosha. Fadlan bogan marka hore inoo share garay kuna soo bir mahadsanidin. Haddii aad ka mid tahay dadka miisaanka jirkoodu dhibta ku hayo jecelna inuu dhimo culayska saaran, waxaa la gudboon in ay raacaan haddiiba ay awoodaan tallaabooyinkan afarta ah oo la ogaaday in ay si weyn u caawinayaan la dagaalanka baruurta iyo miisaanka badan, gaar ahaan xeerta ku ururta caloosha, barida iyo guud ahaan jirka. Dumarka badani waxa ay dhibka ka sheegtaan marka ay ubad dhalaan kadib in ay naaxaan oo baruur badani calooshooda fuusho. Si aad haddaba taasi ugu takhalusto, waxaa kula gudboon in aad tallaabooyinkan u dhug yeelato, kuwaasi oo ah: 1. Qaado 3 ilaa 5 koob oo shaah cagaaran ah oo aad malab ku darto si maalinle ah. Waxa aad tallaabadani caado ka dhigataa muddo 7 ah oo aan kala go' lahayn. Waxaad arki doontaa sida jirkaagu u gubay baruurta 43%. La dagaalanka caloosha iyo gubista dufanka jirka ku jirta. Waxa aad soo qaadataa koob biyo ah. Waxaad ku dartaa malqacad shaah cagaaran ah. Waxa aad ku dartaa oo kale malqacad qamuun ah, xawaash dhudhub, malqacad sinjibiil ah. Inta aad isku walaaqdo, waxa aad saartaa dabka muddo 10 daqiiqadood ah. 3 jeer maalintii qaado cuntooyinka ka hor muddo nus saac ah. 15 maalmood sidaa ku wad. Waxaad arki doontaa idamka Alle isbeddel weyn oo kugu yimid. Cananaaska. Haddii aad heli karto cabitaanka laga miirayo fruutka cananaaska, waxa aad soo qaadataa koob casiir ah oo lagu tuujiyay geedka cananaaska adigoo aan wax sokor ah taabsiin. Muddo 15 maalmood ah waxaad qaadataa cuntada ka hor, adiga oo raacinaya jimicsi fudud iyo nidaam cuntada u dheelitiran oo ay ku yar yihiin karbohaydraytka iyo fatiska. Waxaad ogaan doontaa in wax weyn kuu kordheen oo aad lumisay miisaan badan. Casiirka liin dhanaanta oo lagu barxay sinjibiil. Waxaad soo qaadataa 2 xabadood oo liin dhanaan ah, kadibna mir. Waxa aad ku dartaa koob biyo nadiif ah. Waxa aad raacisaa oo aad ku barxdaa oo kale malqacad sinjibiil riqdan ah ama shiidan. Dabka saar adiga oo baylinaya. Marka ay qaboobaan, waxaad cabtaa habeenkii hurdada marka aad dhinaca dhulka dhigayso. Waxa kale oo aad cabtaa subaxdii marka aad soo toosto, adiga oo aan wax kale afka gelin. Sidaa ku wad muddo 2 isbuuc ah. Waxaad arki doontaa baruurtii caloosha oo ka dhacday insha Allah. Mawduuceeni maanta daawadayaal waa naga intaa. Mahadsanidin.